ku soo dhowaada SNB TV. Wararka naga soo gaaraya Shabeellada Dhexe waxay sheegayaan in khasaaro xoog badan uu ka dhashay weeraradii isdaba jooga ahaa ee ay kooxda Al-shabaab ku qaadeen goobo ciidanka federaalka fariisimo u ahayd. Bal nala daawo kilibkan iyo war-saxaafadeedka ay soo saartay xukuumadda fadhiidka ah ee Mudane Xamse Bare uu hogaamiyo. Galkaas waxa uu ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe goob beera ah oo ku taala duleedka deegaanka Xawaaley. Halkaas waxa ku sugnaa maleeshiyaad ka tirsan khawaarijta Al-shabaab oo tiradoodu ay ahayd qiyaastii 150 maleeshiya ah kuwaas oo loo diyaariyay in ay weeraraan saldhig ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanku ay ku leeyihiin meel aan ka fogeyn halkaas oo bila uun ka hor khawaarijta lagu jabiyay isla markaana laga saaray. howlgalkaas oo sidii loogu talagalay u dhacay waxaa qaybtiisii hore lagu khaarijiyay 61 ka mid ah maleeshiyaadkii halkaas joogay. tiro kale oo aad u badan ayaa sidoo kale la dhaawacay waxaana lagu guuleystay in gebi ahaanba la burburiyo oo la fashiliyo.